Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo waliba Soomaaliya. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo lacaga ugu deeqay magaalada Qardho ee dadku ay sameeyeen. Shirkadda Muqdisho Power oo samaysay abid qiimo dhimistii ugu ballaarnayd ee Soomaaliya. Madasha xisbiyada qaran oo sheegay inay shirkoodii dib u dhigeen caabuqa coronavirus awgii. Qodobada wararka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah caabuqa coronavirus oo si aad ugu faafaya dalka Mareykanka. Waa 30 bisha Abriil sanadka 2020. daawadayaal intaas waxay hayeen qodobadii warka ugu door karana haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay Cabdilqaadir Macalin Nuur iyo waliba Cabdilqaadir Carabow ayaa waxay ugu deeqeen lacag aad fara badan maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Qardho ee dadku sameeyeen. Cabdilqaadir Macalin Nuur oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ugu deeqay maamulka Puntland $150,000 halka Cabdilqaadir Carabowna uu ugu deeqay lacag dhan $100,000. Cabdilqaadir Carabow iyo Cabdilqaadir Macalin Nuur ayaa waxa ay yihiin xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo markasta oo baahi ay ku timaado dadka Soomaaliyeed u gargaara. Cabdilqaadir Macalin Nuur iyo waliba labadan xildhibaan oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay noqonayaan xildhibaanadii ugu horeeyay abid ee dadkooda gargaara kadib markii ay ku soo fataheen daadad ka dhacay magaalada Qardho ee maamulkaasi Puntland. Shirkadda Muqdisho Power Supply oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee kayga Soomaalida ayaa waxa ay magaalada maanta shirjarayd oo ku qabteen magaalada Muqdisho ay ku samaysay qiimo dhimis. Gudoomiyaha guud ee shirkadda maamulaha guud ee shirkadda Muqdisho Power Supply Cabdiqani Aadan Gaas oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay qiimo dhimis ballaaran u sameeyeen waxaana xusid mudan ayuu yiri maamuluhu in ay qiimo dhimistaas u socon doonto abid oo aan ahayn mid ku meel gaar ahaan bisha Ramadaan. Waxa uu sheegay inay mar walba ku daneynayaan dadka Soomaaliyeed waxa uuna intaasi ku daray Muqdisho Power Supply in dadka Soomaaliyeed ay garab taagan tahay dhib kasta oo ku yimaada waana shirkadda ugu caansan kayga Soomaalida taas oo ah shirkadaha ka jira kayga Soomaaliya waxa ayna Muqdisho Power Supply markasta ay shacabka Soomaaliyeed garab istaagtaa marka ay ku dhacaan dhibaatooyin iyo waliba ay la qaybsato dantooda. Madasha xisbiyada qaranka Soomaaliya ayaa shirweyne ay lahayeen dib u dhigay. Warka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo lagu shaaciyay baraha bulshada gaar ahaan website-kooda ayaa waxa ay sheegeen in warqadan ka soo baxday ay uga gol leeyihiin in ay ku yareeyaan caabuqa coronavirus isu imaanshihii waxayna sheegeen inay dib u dhigaan caabuqa coronavirus awgii iyo waliba bisha barakeysan ee Ramadaan. Gudoomiyaha madasha xisbiyada ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in ay shacabka Soomaaliyeed ay awgii dib u dhigaan shirkaasi waxa uuna sheegay inay dib u furmi doonaan kadib markii ay caabuqa coronavirus uu yaraado. Qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid ah caabuqa coronavirus ayaa waxa uu dhibaato ba'an ku haya waddankaasi Mareykanka iyo waliba wadamada reer galbeedka. In ka badan 61,000 oo qof oo dalkaasi Mareykanka ayaa u dhintay caabuqa coronavirus halka in ka badan milyan uu ku dhacay caabuqaasi. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay intaasi ku dartay in caabuqa coronavirus uu dhimashada sayidka keenay kadib markii ay laga helay dad badan. Wasiirka caafimaadka ayaa sheegay inay la tacaaleen dad badan oo ayna ka soo bogsadeen waxa uuna sheegay inay ku dadaali doonaan sidii caabuqaasi ay u ciribtiri lahaayeen. Wadamada Mareykanka, Spain, Germany, Britain iyo waliba wadankaasi Faransa
ayaa waxa uu caabuqa coronavirus ku haya dhibaato badan iyo dalalka adduunkana uu sidaas oo kale u kala xiray ganacsiga caalamka iyo waliba socodkii guud ahaan warkii caalamka aad kala socoteen Joker News inta ayaan ku soo gabagabeynaa waxaan idin warrabiyaa anigoo Abshir Cabdi Jaamaca waxaan idin leenahay muuqaalkan hadduu soo gaaro fadlan subscribe star waana mahadsantahay على رسول الله والآل والأصحاب ومع محبيه ما قال عاشقوه يا رسول الله ما قال عاشقوه يا رسول الله صلاتك والسلام على رسول الله والآل والأصحاب ومع محبيه ما قال عاشقوه يا رسول الله ما قال عاشقوه يا رسول الله waa ku doortayo naboo ku daahir sheeg ninka dhawaysid baa